Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa shabakada wararka Arabsiin News waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka ee wararkan idin heynana waxaa kamid ah Somaliland oo la sheegay inaysan ahayn dal si yar oo fudud u hoostagi kara Soomaaliya. Xaliimo Yari oo shaacisay xilliga rasmiga ah ay ku dhawaaqi doonto go'aanka nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta. Rag loo haysto inay ka dambeeyeen dilka taliyihii ciidanka Gorgor oo la xukumay. Intaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka ee wararka shabakada Arabsiin News aan idin heynaa saaxiibada qiimaha badanow. goorow diyaar garow iyagoo inta ka faahfaahsan waan idin ambaqaadno hadii ay buuno u qadaro. Ogtahay macmiil adeegyada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee Bariga Galbeed sanadkani cusub ee 2020ka. Shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhaqan geyiga uga barteen safar raaxo leh, adeeg hufan iyo sidoo kale ammaano lagu kalsoon yahay. markale kulan haboon saaxiibayaal daawadayaal aynu ku bilaawno. Somaliland ayaa la sheegay inaysan ahayn dal yar oo si fudud loo hoosgeyn karo Soomaaliya. Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa sheegay in aanay sinaba suurtagal aysan ku ahayn midnimo dhexmarta Somaliland iyo Soomaaliya xilli la sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ay wadaan dadaalo ku aadan midnimo labada dal dhexmarta. Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo la hadlay qaar kamid ah warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ugu horeen hadalkiisa ku bilaabay Somaliland ma ahan dal si yar oo fudud loo hoosgeyn karo Soomaaliya. qarannimada Somaliland ma ahan mowqif laga noqon karo cidda midnimada Soomaaliya nagu qasbi kartaana ma jirto. dal ha ahaado dawlad ha ahaado safiir ha ahaado maxaa yeelay ayuu yiri mowqifka Somalilandnimadu waa mowqif ay shacabka reer Somaliland ay qaateen. Xaliimo Yari ayaa shaacisay goorta ay ku dhawaaqayso xilliga doorashada Soomaaliya la qaban doono iyo hanaanka loo wajahayo. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yari ayaa lagu wadaa in 27 bishan aynu ku guda jirno ee May ay ku dhawaaqdo xilliga doorashada guud ee Soomaaliya la galayo sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka. waraysi gaar ah ay siisay idaacad maxalli ah oo ka howlgasha magaalada Muqdisho oo arintan wax laga weydiiyay ayay Xaliimo Yari ku tiri si fiican ayuu noogu diyaarsan yahay ayay tiri waxaan sugeynaa sida sharciga doorashada ku dhigan waxa uu leeyahay 6 bilood ka hor maalinta doorashada loogu talagalay guddiga waa in ay baarlamaanka hortagtaa oo ay ku dhawaaqdaa waxaana arinkan ay ku aadan tahay ay tiri 27 bishan May. waa waxyaabaha aan hadda ka shaqeynayno sidii aan baarlamaanka u hortagi lahayn si fiican ayaynu u shaqeynaa ayay tiri oo waa aynu ku dadaalnay hanaanka loo wajihi lahaa qorshahan. baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hadda fasax ku maqan waxa aan la ogeyn xilliga ay ka soo laabanayaan fasaxa isla markaana ay hortagi doonaan xubnahan guddiga in ay la kulmi doonaan guddoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya si go'aankan 27 bishan uu u hirgalo. iyadoo ay sida ay tahay haddana waxa baarlamaanka federaalka ah uu guddi gaar ah u saaray sameynta sharciga habraaca doorashooyinka. waxa kale oo isla golayaasha sharci dejinta horyaala sharciga xisbiyada oo dib u eegis ku jira. walina dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka kama aan heshin nooca doorashada rasmiga ee Soomaaliya ka dhici doonta. siyaasiyiinta iyo falanqeeyaasha ayaa waxa ay sheegayaan inay adag tahay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda sanadka 2021ka Soomaaliya. waxayna soo jeediyeen in lagu laabto tii dhacday 2016 ama wax laga bedela. International Crisis Group ayaa soo jeediyay arintan oo kale oo ah in doorashada golaha shacabka ay ka qayb qaataan 14,000 taas oo ka dhigaysa in 25 ruux la dhimay oo ah
in baarlamaanka imika shaqeeya ay soo xuleen 14,520 ergo kuwaas oo doortay 275 kuraas oo golaha shacabka ah. xisbiyada mucaaradka ayaa walaac waxay ka muujiyeen in nabad iyo nolol aanay daacad ka ahayn doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda 2021 gudaha Soomaaliya, waxaana isdiiwaangeliyay xisbiye gaaraya 82 xisbi inkastoo aysan weli isdiiwaangelin xisbiga nabad iyo nolol. weli waxaad daawanaysaan wararka Arabsii News. rag loo haysto dilka taliyaha ciidanka Gorgor ayaa maanta maxkamaddu ay xukuntay. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaca waxa ay xukun dil toogasho ah ay ku riday laba ka mid ah rag loo haysto dilka taliyaha ciidanka Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. raggan dilka loo haysto oo gaariyay 4 kana mid ahaa ilaalada hotelka Maida ee Kismaayo Blood labo ayaa waxaa xukun dil toogasho ah lagu riday laba ka mid ah kuwaas oo maxkamadda ciidamadu ay sheegtay in ay cadaatay dilka ee loo geystay taliyaha Gorgor. dilka taliyaha ciidanka Gorgor Maxaadey Saleymaan ayaa 18 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2019 waxa uu ka dhacay agagaarka hotelka Maida ee Kismaayo Blood labo, waxaana loo xiray 4 rag ah oo laba ka mid ah ay maanta maxkamadda xukun dil toogasho ah ay ku riday. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in raggan maxkamadeentoodu ay soo martay heerar kala duwan isla markaana ugu dambeyn maanta maxkamaddu ay go'aan ka soo saartay. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal. 1 deble xooga xasan Shuute Cusmaan 37 jir ah ina Xabiibo Mahdi Maxamuud ku dhashay Shabeellada Dhexe ka tirsan guutada afaraad qaybta 12 Abriil xooga dalka Soomaaliyeed. 2 deble booliis Juule Gaabo Ibraahim 38 jir ah ina Xabiibo Taakow Calasow ku dhashay Shabeellada Dhexe ka tirsan ururka taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. 3 Salaad Xayla Macalin 35 jir ah ina Makay Maxamuud ku dhashay Xamar ka tirsan ilaalada amniga hotel Maida ee Kismaayo Blood labo. 4 Mukhtaar Cabdulaahi Muuse 25 jir ah ina Xareedo Cumar Xasan ku dhashay Shabeellada Dhexe ka tirsan ilaalada amniga hotel Maida, kuwaas oo xafiiska xeeldhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay dil u geysteen marxuum Ekis Gaashaan la xooga Maxamed Suleymaan Abikir Maxaadey oo ahaa taliyihii ururka Gorgor xooga dalka Soomaaliyeed iyo marxuum deble xooga Ismaaciil Maxamuud Maxamed oo ka tirsanaa ururka Gorgor xooga dalka. taariikhdu markay ahayd 18 bishii tobnaad 2019 dembigaas oo ka dhacay isgooska Shabeelle degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qoraalka eedeysane Juule Gaabo Ibraahim uu ka horqoray garsoorka hortiisa in isagoo waardiye ka haya bir kontarool oo laga ilaaliyo hotel Maida uu dhanka Shabeelle kaga imaaday gaari fildar ah, kadibna uu xabad ku riday, sidaasna uu ku joogsaday gaarigii, kadibna ay dhaceen xabado kale oo fara badan oo ay ridayeen ilaalada hotelka, isagana ilaa 4 xabad uu sii riday. markaas kadibna uu ogaaday in meesha ay ku dhinteen sarkaalka iyo askariga. maxkamaddu markay dhageysatay markhaatiyaashii la hor keenay midna uu weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedeysanaha labaad uu xabad ku riday gaariga uu waday sarkaalka oo ka imaaday dhanka isgooska Shabeelle, kadibna uu joojiyay gaariga kuna amray in uu gadaal u qaado gaariga, sidaasna uu gadaal ugu celiyay gaarigii isagoo ku baakimay marshibiyeedka laamiga. markii uu ka soo degay isaga iyo labada askari oo kalene ayaa waxaa hotelka ka soo baxay eedeysanayaasha koowaad iyo afraad oo hubeysan, kadibna waxay fureen rasaas 4 eedeysane, waxayna ku dhacday labada marxuum. markay dhageysatay maxkamaddu warbixinta madaxa shaybaarka cilmiyeysan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo maxkamadda ka hor sheegay in baaristii uu ku sameeyay 3 qoray oo ay ku hubeysnaayeen eedeysanayaasha koowaad, labaad iyo saddexaad,
ku ogaaday in ay yihiin hubkii loo adeegsaday dilka labada marxuum isla markaana ay isyeesheen fooqyadii laga soo qaaday goobihii ay xabadaha ka rideen sidoo kale wuxuu maxkamadda ka hor sheegay in gumicii dilay marxuum Ismaaciil uu ka dhacay qoriga uu watay eedeysanaha koowaad markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah qoraalka laga qoray eedeysanaha labaad Juule labo qoraalka warbixinada shaybaarka cilmiyeysan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed saddex sawirada labada marxuum iyo xaashida cadeynta dhakhtarka ee dhimashada afar sawirada goobtii dambiga ka dhacay iyo raadadkii laga helay oo ay ka mid yihiin fooqyadii ka haray rasaastii ay rideen eedeysanayaasha iyo gumicii dilay marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed shan afartii qoray oo ay eedeysanayaasha ku hubeysnaayeen markay ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in kow dable xooga xasan shuute cusmaan labo dable booliis Juule Gaabo Ibrahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleymaan Abikar Maxadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed sidoo kale Salaad Xayla Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsaneen xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiiq guud ahaan warkii aad ka daawanayseen shabakada wararka Arabsiin iyo saaxiibayaal daawadayaal waa inaga intaad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa intaan dib u kulmi doono nabadgelyo